maleeshiyooyinkan ka tirsanaan jiray alqaacidada Soomaalida ah ee Al-Shabaab kana koobnaa rag dhalinyaro ah iyo kuwa meel dhaxaad oo isugu jira maleeshiyooyin ku sugnaa qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kuwa ku jiray difaacyada aan buurnayn ee maleeshiyada shabaabka ku dhowranayso magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa barqanimadii maanta si rasmi ah iyaga iyo hubkooda isugu soo dhiibay ciidamada qalabka sida ee dalkeena iyo ciidamada AMISOM ee aan saaxiibadan ahay maleeshiyooyinkan oo tiradoodu ku dhaweey 300 qofood ayaa waxa ka hadlay saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa ciidamada AMISOM gaashaan la dhexe Abshir Maxamuud Maxamed Shatoqi oo sheegay inuu taliye u yahay ururka labaad ee guutada koowaad ciidamada xoogga dalka ayaa tuulada Garsaale oo ka tirsan deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay maleeshiyooyinkaas isku soo dhiibeen kula hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xilli maanta ay howlgal ay ciidamada qalabka sidii kuwa AMISOM ku qabsadeen tuuladaasi iyo deegaano kale ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe saakay markay ahayd 12 waxaan ka soo dhawaaqnay fariisada meeshan ku lahayn degmada Balcad waxaan soo aadnay qoladan oo ay sheegeen warbixinteeda iyo lagu maqnay waxaan imaanay meesha la yiraahdo Garsaale 250 nin ayaan noo suurto gashay inaan gacanta dawladda noo soo gasho anagii iyo saaxiibadeen AMISOM waxaana hadda arkaysiin hubkoodii iyo ayakii oo nool oo wareysalada yeelateen waxaan rajaynaynaa dadka kale oo maqan oo jiraan meelahaas kale sida dadkan Soomaaliyeed ee ugu soo beeleen dawladda inay ku soo beelaan hadii la yiraahdo sidee idinku soo gashay in aad intaan oo tiro ah waa markii ugu badnayd 250 iyo wax la jira oo maleeshiyooyinka shabaab ka tirsan in mar qura ay soo wada goostaan ay isku soo dhiibaan ciidamada qalabka sidee idinku soo gashay inaad idinku hanataan xiriiro dhinacyo ay baad la sameeyeen waxaan sameeyay dagaalo badan oo geed dheer iyo geed gaaban lagu fuulay si allaala si loogu soo xirigelin lahay ummadaan la qalday oo dhibaato badan loo geystay sidii mar iyadoo la dilin aan dadkana ay dhibaateen gacanta iyo dawladda isagu soo beelaan loona sheegay sida waalad si uu shaqo lahayn Henry Abbo afhayeenka ciidamada Uganda iyo saraakiil ka tirsan AMISOM oo qayb ka ahaa qorshaha isku soo dhiibeen maleeshiyooyinkan ayaa iyaguna siyaabo kala duwan ula hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. This is one of the biggest achievements we have so far. I'm called Stefan Mugaria. I'm the operation commander of this operation. We have started this operation 1 week ago. ugu dambeyntiina horjoogii hogaaminaya maleeshiyooyinka isa soo dhiibay iyo qaar kamid ah maleeshiyooyinkaas ayaa waxa ay dhankooda la hadleen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. tirada guud soo dhiibtay waxa 215 askari waa ayee waxaan ka soo gudubnay gobolka Jowhar Shabeellaha Dhexe maxay soo dhiibteen maxaa shabaab meeqsanaad u shaqeynaysid 3 sano ayaan u shaqeynaa sabab ayee aan ciidamada ka tirsaneen intee ka dagaalgali jirtay waxaan ka dagaalgali jirnay Muqdisho iyo gobolada qaybta Muqdisho sida Boondheer oo kaleento maxaa la dhahaa qaybta kaleento xamar bulo kaleento golaha dhamaashada ka dagaalmaysa gobolkiisa ku soo dagaalgali ma jirto hadda maxaa Al-Shabaab idin ka soo saaray Al-Shabaab waxa naga soo saaray maadaama ay kitaabka ka been sheegan aan aragnay sidaas ay anoo iskaga soo tagnay ummadda xaq aysan ku dhaqayn oo markaad u dagaalamaysan ma idin ogeyn inay kitaabka ka been sheegayaan annaga ma ogeyn dad kitaab daacad wataan u haysan waxaan ogaanay marka inay kitaabka Allah ka been sheegan ay waxay soo beenayeen marka kuma siyaadana waxaan diyaar u nahay inaan dawladda ku beerno oo sidii mago dadkii oo uga hortagno hadda waxaan diyaar u nahay inaan hawraadaan ciidan calankeeda dhulka waxay difaac maleeshiyooyinkan aad u jeedaan waa kuwa ka soo goostay maleeshiyooyinkii alqaacidada Soomaaliya Al-Shabaab oo ayagu haatan isu soo dhiibay ciidamada qalabka sida iyo waliba kuwa AMISOM waxaana ay qayb ka noqon doonaan sida ay sheegeen difaaca dalka looga xoreynayo maleeshiyadka alqaacidada Soomaalida ee Al-Shabaab xasan matoore telefishinka qaranka Soomaaliyeed deegaanka Qalimow Shabeellaha Dhexe.